بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhiganaynaa seedkan urur baa la weydiiyey su-aasha koowaad eedu waa intaas weeye inta halkaa ku dhex jirta weeye wareegga ugu horeeya keliyata ayaa eeya markaan eeda u baahanahay keliyata markaa maxaan qorayaa hal one baan dhihi waa two one two three five six bes baan dhahayaa waa intaa weji eedu bida haddii la weydiiyena maxaan dhahayaa biduna waa intaas weeye intaa wareeggaa ku dhex jirta weeye wareeggaa keliyata biya intaasaa ii biya maxaan dhahayaa markaa haddii waa one four six nine baan dhahayaa bes a union b haddii la dhahana a union b waa a iyo b oo isku tagay weeye a iyo b oo isku tagay dhammaantood weeye waxa meesha ku dhex jiraba labada wareegba waxa igu dhex jira ayaa la yidhaahaa a union b waa labadooda isku tagay ama midoobay weji ayaa uniona markaa maxaan dhahayaa waa hal laba saddex afar lix sagaal intaa weeye a intersection marka la dhahana a intersection b waa a iyo b maxay iskaga midka yihiin waa intaa yare dhexda ay ku jirtaa intaasay iskaga mid yihiin waa hal iyo lix bay iskaga mid yihiin waxaan dhahayaa marka hal iyo lix intaabay iskaga mid yihiin haye a b faransi a baa la weydiiyey waxa b ku jiro aana a ku jirin baa la weydiiyey waxa b ku jiro aan ku jirin bes intaan baa la weydiiyey haddii lagu dhaho b difference a waa waxa b ku jira aana ku jirin maxaan dhihi markaa waa four nine baan dhahayaa su-aasha kale isoo hadha waa a sumad yar saaranta a sumada ay saarantahay complement way a complement baa loo akhriyaa waa waxaan eedii la isiiyey aana ku jirin laakiin universalka ku dhex jirta universal dhexdeeda universal waa waxa meeshan oo dhan bay ku dhex jiraan marka waxaan dhahayaa waa waxa ku dhex jirta universalka laakiin eeda aanan ku jirin waa intaas markas intaa weeye universalku a complement marka maxaan dhaha waa four seven eight nine baan dhahayaa waad fahantaan u malinaya su-aashan kalena ka shaqeeya asalaamu calaykum waxaa noo socda beri casharkeenii taxanaha maanta waxaan dhiganaynaa three set baan dhiganaynaa qayb saddexaad haddaan saddex jeexdo three set fire diagram aan u sameeyo f t iyo b ft waxaan usoo qaatay football tdana tennis kana basketball aan dhaho marka inta kalaas kama soco intaan dhaho haddaan jeexjeexo tusaale aan u jeexjeexo waa three set way waa saddex urur oo isku dhex jira haddaan u sameeyo calaamado si aan u fahno marka uu yahay fan diagramka u fiirso saddexdan tusaale waa football tennis iyo basketball intaas yaa iska leh f baa iska leh intana b baa iska leh imika inta haddaan dhaho waxaan dhahay only f baa iska leh waa f oo keliyata kaa kalena haddaan intaa aan qoro intaa yaa iska leh only t baa iska leh tenniskii baa iska leh kan kalena intiisa bida basketballka intaa basketballkii baa iska leh only b baan dhahayaa waa basketball marka intaas waa intii ka wada dhexdhexaysa weji marka haddaan imika intaa dhaho masaxda may baan dhahayaa waa khalad wey maxaa yeelay waa inuu meelis raaca f intersection b meelis t waa inuu ii noqdaa oo laga sii jaray maxayna tdaas waa inuu ii noqdaa marka waxaan dhahayaa f intersection b intaan yaa iskale waa intaa marka f intersection b minus t baan dhahayaa minus t kan kalena haddaan sidaa u sheeg isna maxaan dhihi waa f intersection t minus b baan dhahayaa
kan kalena maxaan dhihi waa f t intersection b minus f baan dhahaya. inta yare dhexdana maxaan dhahayaa waa f intersection t intersection b baan dhahaya. f intersection t intersection b ay noqonayaa. waad fahantaan u malaynayaa. intaasuu noqonaya. haddaan intaa u baahdo tusaale yaro kale aan ku siiyo. kow intan haddaan dhaho maxaan dhahayaa waa f intersection t baan dhahayaa. kow waa f intersection t. haddana haddaan dhaho waxaan dhahayaa waa b maan dhihi doona. intaa haddaan jeexo waa b intersection f baan dhihi. ka kalena maxaan dhihi haddaan mid kala jeexo kana waxaan dhihi waa t intersection b baan dhahayaa. waad fahantaan u malaynayaa Venn diagramka iyo siday markay isdhex galaan sida lagu kala garto. waad fahantaan u malaynayaa. halkan waa Real Maths Private School. insha Allah waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab qaab aad iyo aad ugu fudud. waa anigoo Real oo idin leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tacaala.